waxna loo daa duhur wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warka duhur ee radio kulmiye qodobada maanta aan idin hayna waxa uu waaweyn madaxweynaha Soomaaliya oo maanta u ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya dhammaan shaqaalaha dawladda Soomaaliya oo maanta laga fasaxay shaqooyinkii maalinlaha ahaa ciidamo isugu jira Soomaali iyo Mareykan oo weerar ku qaaday saldhigyo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Mubaarak saraakiisha ciidanka xoogga oo sheegay inay xubno ka tirsan al-shabaab ku dileen magaalada Marka xubnaha baarlamaanka Galmudug oo leh kulan ay uga doodayaan mooshinka laga gudbiyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Galmudug oo cadaada u tagay xal u raadinta khilaafka Galmudug meydadka askar ku dhimatay israsaaseen dhex martay ciidamo hoostaga maamulka Hirshabeelle oo maanta Muqdisho la keenay maxkamad ku taala Qardho oo xukun dil ah ku riday 2 ruux oo hore dil uga geystay magaalada garoonka diyaaradaha ee caasimadda Liibiya oo la weeraray iyo madaxweynaha Ruushka oo beeniyay inay dambiilayaal yihiin rag lagu eedeeyay sumayntii basaas Ruush ah Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkan u qaad markale duhur wanaagsan waa 4 bisha 9 ee September sanadka 2018 Cali Ibraahim Cabdullaahi ayaa warkeena duhur soo saaray Maxamed Axmed Maxamuud iyo anigoo ah Farxiyo Xuseen ayaan idin la socodsiinayna markaana warkii oo dhan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay magaalada caasimadda u ah waddanka Itoobiya ee Addis Ababa halkaas oo ay shir uga qayb galayaan Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka waramaya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda dalka Itoobiya madaxweyne farmaajo ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo shirka isugu imaanayaan madaxda wadamada ku midoobay urur goboleedka IGAD sidoo kale shirka waxa ka qayb galaya hogaamiyaha dalka Eritrea Isaias Afwerki maadaama Eritrea ay urur goboleedka IGAD ka baxday sanadkii 2007 kadib markii ciidamo ka tirsan Itoobiya ay soo galeen Soomaaliya taasina ay keentay dawladda Eritrea inay ka soo horjeesato shirka ayaa waxaa looga hadli doonaa isbedelada siyaasadeed ee xilligan ka jira gobolka iyo in la ansixiyo xubinimada ay urur goboleedka ku leedahay dawladda Eritrea toddobaadkii hore ayay ahayd markii madaxda wadamada Soomaaliya Itoobiya iyo Eritrea heshiis iskaashi ay ku kala saxiixdeen magaalada Asmara ee dalka Eritrea ayaa hadda u muuqata inay soo celinayso xubinimadii urur goboleedka IGAD iyadoo maanta madaxweyne Isaias Afwerki uu ka soo muuqan doono shirka urur goboleedka IGAD ugu furmaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa maanta fasax ku jira dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Soomaaliya kadib warqad ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda warqadda ayaa lagu sheegay in dhammaan shaqaalaha ay fasax yihiin maanta oo ah 22 bisha September kuna beegan bisha koowaad ee Muharram sanadka cusub ee Hijriyada 1440 sababta ayaana lagu sheegay in maanta ay tahay maalin fasax ciideed ah sanadka cusub ee Hijriyada bilowgiisa waxaan u rajaynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay ku ciidaan maalintii uu nabigeena suuban nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee ka hijrooday magaalada Makka una hijrooday Madiina ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliya ciidamo isugu jira Soomaali iyo Mareykan ayaa lagu soo waramayaa inay weerar ku qaadeen saldhigyo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose mas'uuliyiinta ciidamada xoogga dalka ee jooga magaalada Markana waxay sheegeen in weerar al-shabaab ay soo qaadeen kadib ay Marka gudaheeda ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab wariyaha idaacadda kulmiye uga soo warama Shabeellaha Hoose Saciid Ra'iis Cali ayaa ka waramaya ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab oo garab ka helaya ciidamada Mareykan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka Mubaarak oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha shabaab ciidanka huwanta ah ayaa diyaaradaha qomaatiga u kaca waxa ay ku tageen duleedka deegaankaasi halkaas oo kadib ay ka lugeeyeen waxaana deegaanka Mubaarak ay kula dagaalameen dagaalamayaasha shabaab
ciidanka danab iyo kuwa Mareykanka ee isgarabsanaya ayaa toogasho ku dilay dhowr dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab iyo saraakiishooda. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ku sugan gudaha gobolka Shabeellaha Hoose waxay warqabadka idaacadda kulmiye ee gobolkan u xaqiijiyeen in ciidanka huwanta ay burburiyeen dhowr saldhig oo al-shabaab ay ku lahaayeen isla deegaankaasi Mubaarak. Dadka deegaanka oo aan la xiriirnay laakiin codsaday in codkooda iyo magacooda aan warbaahinta loo adeegsan ayaa waxa ay xaqiijiyeen in al-shabaab magaalada ay kula dagaalameen ciidanka militariga gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab iyo ciidamo Mareykan ah. Waxa sidoo kale ay sheegeen in al-shabaab magaalada markii ciidanku ay ka baxeen kadib ay ka bilaabeen howlgallo baaritaano ah oo dad badan ay u soo qabqabteen howlgalkii ka dhacay deegaankaasi. Al-shabaab dhankooda war ay ku qoreen baraha ay internetka ku leeyihiin waxa ay guula ka sheegteen howlgalkaasi ka dhacay deegaanka Mubaarak iyagoona sheegay in ay laba askari oo ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee howlgalka ka fulinaya deegaankaasi ay dileen hubkii ay ciidankaas ku dagaalamayeen ay gacanta ku dhigeen. Waxaana sidoo kale ay sheegeen in weerarkaasi dagaalamayaal iyaga ka tirsan ay fashiliyeen. Ma jiraan wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka oo looga hadlayo weerarka ay ciidamada huwanta ay ka sameeyeen deegaanka Mubaarak. laakiin dhowr jeer hore ayaa ciidamada Mareykanka iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee danab waxay howlgallo wada jira ay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo ay gacanta ku hayaan al-shabaab. Dhinaca kale wararka aan ka helino magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in 9 ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay dagaal ka dhacay magaaladaasi oo dhexmaray ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada 14 Oktoobar iyo dagaalamayaasha al-shabaab. Dagaalkaas oo ahaa mid gaadma oo al-shabaab ay ku qaadeen fadhiisana ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin magaalada Marka ayaa la soo sheegayaa in meelaha lagu dagaalamay lagu arkay meydadka 9 dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab kuwaas oo ciidanka xoogga dalka iyo saraakiishooda ay ka soo qaadeen goobihii ay ku geeriyoodeen. Al-shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay weeraro culus ku qaadayeen magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose oo 19 bishii la soo dhaafay August ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka. Saciid Ra'iis Ali Radio Kulmiye Shabeellaha Hoose. xubnaha baarlamaanka Galmudug ayaa maanta waxa ay leeyihiin kulan ay uga doodayaan mooshinka laga gudbiyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Cali Gacal Casar. Maxamed Axmed Maxamuud oo warkale akhrinaya ayaa soo koobaya. magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa ka socda shir ay leeyihiin xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug iyadoo la soo sheegayo inay kulanka soo xaadireen xildhibaano tiradoodu ay gaarayso 137 xubnood. xildhibaanada ayaa hadda waxay ka doodayaan mooshinka ay ka gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir. saacadaha soo aadan ayaa la filayaa inay go'aan soo saaraan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ee kulanka ku leh magaalada Dhuusamareeb. shalay ayay ahayd markii xildhibaano gaaraya 89 mudane ay mooshin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ay gudbiyeen inkasta oo gudoomiyuhuna uu ka hor yimid arrintaas. waxa uu sheegay gudoomiyaha oo warbaahinta la hadlay in xildhibaano sharci darro ah ay mooshin sharci darro ah ka gudbiyeen. siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Galmudug ayaa saacadaha soo socda waxa markale aan ku celiyo siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug ayaa magaalada Cadaado waxa ay u tageen xal u raadinta khilaafka ka taagan maamulka Galmudug. wariyaha idaacadda Kulmiye Shaafici Shariif Maxamuud ayaa inooga waramaya. maantahay maanta waxaa soo gaaray magaalada Cadaado wafdi iskugu jiray siyaasiyiin iyo sidoo kale waxgarad oo ka soo baxay magaalada Muqdisho caasimada dalka. wafdigana waxaa gudada diyaaradaha Cadaado ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootol iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. ujeedka ugu weyn ee wafdigana maanta ay yimaadeen magaalada Cadaado ayaa waxa ay tahay sidii xal loogu raadin lahaa khilaafka ka dhex qarxay mar kale madaxda Galmudug oo sidoo kale dhankeeda maanta magaalada Dhuusamareeb uu ka socdo kulan looga doodayo gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo la sheegay in mooshin dhankiisa laga gudbinayo. marka guddigan isku soo warduubo ujeedka ugu weyn ee ay yimaadeen magaalada Cadaado maanta waxay tahay sidii xal loogu raadin lahaa khilaafka madaxda Galmudug. dhanka kale waxaa la filayaa in wafdi ka socda dhanka Gaalkacyo ay soo gaaraan Cadaado oo dhankooda si qayb ay uga noqdaan xal u raadinta khilaafkan madaxda Galmudug la doonayo in iskugu soo dhaweeyo. ilaa hadda ma jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu halkaas yimid oo waawaantan qayb ka wada. maya ilaa hadda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ha ahaadaan mas'uuliyiin ka tirsan baarlamaanka labada aqal weli ma soo gaarin si ay uga qayb qaataan
qaataan hase ahaatee wafdigani ayaa la filayaa inay hordhac u noqon doonaan oo xildhibaanada kasoo jeeda galmudug ay imaan doonaan markaasi kadib si dhankooda ay uga qayb qaataan xal raadinta xildhibaanada hase ahaatee wafdigani maanta yimid ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano iyo sidoo kale wasiiro horey dowladii dhexe ee kumeel gaarka aheed uga soo qabtay xilal. meydadka askar ku dhimatay israsaasayn dhex martay ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa maanta waxaa la keenay magaalada muqdisho. israsaasaynta u dhexaysa ciidamadu shalay ayay ka dhacday shabeellaha dhexe. yunis duraan cali ayaa faahfaahinaya warkan. meydadka askartan ayaa maanta la soo gaarsiiyey magaalada muqdisho iyadoo loo gudbiyey xarunta dimi baarista CID-da. ehelada askarta ku dhimatay iskoorimaad dhex maray ciidamo uu watay wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka ee dekedaha maamulka hirshabeelle cusmaan xaadoole iyo ciidamo sida la sheegay ilaalo ka hayay meel laga qaada carrakaabo dagaal ku dhex maray deegaanka ceelmacaan ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ka hadlay sida iskoorimaadku u dhacay. waxa ay beeniyeen in askarta la dilay ee isbaaro u taalay deegaanka ceelmacaan waxayna sheegeen in wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha maamulka hirshabeelle uu watay ciidanka askarta laayay waxayna sheegeen in wasiirka warbaahinta qaar u sheegay inay dileen rag isbaaro u taalay siday ayagu sheegeen. idaacadahana waxaa laga sheegay inay nimankii burcad ahaayeen ay ciidankan socday ee jidka u galeen idaacadaha laga sheegay mana jirto waana been oon rad lahayn waay. marka waxaa la rabaa in la ogaado deegaankana waa ceelmacaan waaye. meesha waxaa waaye waa ka shaqaysanayeen dadkan muxuu ahaay mahoodia in loogu yimidaan lagu belbelay. ciidankana waxaa watay nin xaadoole ciidankaas watay. aygu waa cabdulaahi dheere kana soo jeeda deegaanada ay wax ka dhaceen dadkaasna ay ahalkayga yihiin. waxaa la sheegayo oo idaacaduhu ay sheegeen waa been waxba kama jiraan. isku dhac si qalada u dhacay ayay arrintaasi u dhacday. arrintaasuna waa arrin naxtin leh xumaan dhacday tii ugu xumeed. annagu arrintaas dhacday dhici jirta dhacda kamida waay dhacdada wax burcadahoy nimankaas ahaayeen ma jirto. niman la og yahay oo ciidan ah oo dhulkoodii jooga meesha waxaa ku dhimatay sida hadda aan ka warqabo 4 ilaa 5 qofood ayaa ku dhimatay 12 waaye dhaawaco. deegaanka waxaa waaye deegaanka ceelmacaan waaye waa dadka u dhashay meeshaas. xogayaha degmada warshiiq xasan cabdulle maxamuud ayaa dhankiisa ka hadlay sida ay labada ciidan u dagaalameen isagoo sheegay in durba goobtay gaareen maamulkooda. dhacdadaas markii ay dhacday shalatu goor gaaban waa ku baxnay oo goobtiiyaan tagnay. waxaan ugu tagnay 4 geeriyootay ilaa mid oo dhaawac 12 dhaawaca nana soo gaartay dhaawacino mid kale ka geeriyooda. dibadiir markaan meesha tagnay waxaan ogaanay dadkaas meesha ku geeriyooday inuu ahay dad shaqaysanayo carrakaabo ka shaqaysanayo iyo dad u abniya oo meesha u fadhiya. ninkan wasiir dowlaha asagoo meesha maraya ayuu ku leexday. mar allaale sida ay noogu sheegeen goobta aan tagnay oo dadka wax xaqiijiye aan ka waraysan inuu meesha uu tegey iswaraysiga uu ka halaabay ay meeshii dhacda ka dhacday meesha xabado la iskula fura. dhibaatadaasaa meesha ka dhacday mid raalli la isaga yahaa maaha. waxyaabaha idaacadda laga sheegana oo waa tuuga iyo waa burcad layidhi waxba kama jiraan waaye waa beenaan sanraad lahayn. gelinkii dambe ee shalay ayaa deegaanka ceelmacaan waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamo uu watay wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha maamulka hirshabeelle iyo ciidamo la sheegay inay ilaalo ka hayeen goob laga qoda carrakaabo. dagaalka ayaa waxaa ku geeriyooda 5 qof halka dhaawaca uu gaaraya 12. maxkamad ku taala Qardho ayaa xukun dil ah waxa ay ku riday 2 ruux oo horey dil ugu geystay magaaladaasi. Cumar Maxamed Soomane ayaa ka waramay. maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada maamulka Puntland ayaa maanta u fariisatay dhageysiga eedeynta dacwad loo haysto 2 ruux oo laga shakisan yahay inay horey dil ugu geysteen marxuun meedkiisa laga helay inta u dhaxaysa magaalooyinka Garowe iyo Qardho. madaxda maxkamadda ciidamada oo ka qayb galayay dhageysiga eedeynta dacwadda loo haystay labadaasi ruux ayaa ugu dambeyntii gaaray go'aanka kama dambaysta ah faldambiyeedka loo haysto raggaasi. maxkamadda ayaa shaaca ka qaaday in dil lagu xukumay 2 nin eedeysanaha ah ee la sheegay inay dileen marxuun lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Cabdullaahi Axmed oo meedkiisa dhawaan laga helay wadada u dhaxaysa magaalooyinka Garowe iyo Qardho. maxkamadda ayaa 2 nin waxa ay ku xukuntay dil qisaas iyadoo ugu dambeyntii amartay in xabsiga lagu soo hayo eedeysanayaashaasi ilaa inta go'aan kama dambaysta laga gaarayo kiiskooda. dadka ku eedeysan faldambiyada noocan oo kale ayaa ku jira xabsida ku yaala deegaanada Puntland waxaana ay yihiin kuwa xukun sugayaala
iyadoo sidan oo kale maxkamadda ciidamada Puntland ay fal dil ceenkan oo kala ugu xukuntay rag ay ku eedeysay inay horey u geysteen fal dambiyeed iyo kuwa loo haystay inay ka mid ahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugan deegaano ka tirsan maamulka Puntland. halka warkaasi